هذا مجين جاد أنتو عني عندنا وما حنقول هذا هلا بين أنتو مرقام وإسرائيل كده حركة ودن كان يهود إيمان ميسو مالن إيمان ميسو هبين إيمان ميسو ليك إسرائيل وبنايها مركب ما أنت كبعد الصومالي وبنايها أقون سمرتها ها واكو أقون صدق مضاع كلنا واكو أقون سي حل إسرائيل أي كل باقي إن مامل كسومالي لان أي أقون ستيدل مضاح بنان أيها قار كم دا شعب كل دقن مقالة مقدشة وحان ويديني أركتده دكو أدن سيدا يو أركان إن سومالي لان لو أقون صدق دل مضاح بنان كنا مضاح بنان سومالي أنت هذا كله شعب كأيها اسكم دا وحي أشياء إن وح لقى حماضة أي تهاي إن إسرائيل أي دل مضاح بنان وأقون صدق مامل كسومالي لان هذا بقى واقوان قار كم دا شعب كم مقالة مقدشة وأنا وح كويديني أركتده دكو أدن سيدا يو أركان إن ماملك سومالي لان إسرائيل أي أقونسته دل كم مدح بنان سومالي أنت ذكلا إسرائيل إذا أقونس عن هاي سنورت بتاتا عالم الإسلامي بس إن مل أي كيس يسجرين أو طول ولا لا هنا فلسطين مالك أستيقظ يقوم هذا سيحوق أي كويس باب إنيس وحيابيه ضد كده لا لي ذا أفمشارين تاي وجوجي يكون فشلمين إسرائيل أنا قصة سنورت وأركا waayo muqdisho holcay ka wadi jirtay iyada u sabab ahayd Israa'iil waayo dollar ay dadka ku kala gidi jirtay dollarka yar muqdisho waa diideen iyay marka warkayga oo ka gadmaa waay aqoonsi marta ha waa ku aqoonsaday madax kalena waa ku aqoonsay horta madaxweynaha Mareykanka waa maasan yahay waa ka fiirsan doonaa oo yiri waa ugu mahad celiyeynaa inuu iska diida marka ka sugaynaa waxaan kale aan dhihi lahay Israa'iil haddii aysan ka dhaqan waxay sugaysaa Falastiin oo Soomaali ina timaado dhinaceeda ay ka dagaalamayso ka horbar dagaalamayso Israa'iil ujeedkay ka leedahay dan Soomaaliland ma wada danteeda wadataa waayo waxay meeshan loolan adag ku jiriya Turkiga maadaama oo saldhig inta halkan ka furahayo Israa'iil waxay diidintaa marka in Turkiga gobolkan ugu awood badiyo galaan siyaasadeed ku lahaado ayay weerarta marka si looga hortagi lahayd يعني مركي يو تاس بدأ يسوي هو أرتاي مركز سومال ماشي جانس كا إن سومال لان أي دولة نمو أقوسته أي ترى صلّي جيسي صلّي أصلا أي كبر بريسو دولة ده كلو ترس كاسد إسلام يعني إسرائيل مرة ما جعلنا نقف إسلام أما رب أحد أما سومالي أحد هو جعل مجرد واسكم متسدي على فلسطين وأسوق إسلام كردن ويهودي marka Soomaaliland waxaan dhihi lahaa horta heshiiska inay ka fiirsato waayo danaha islaamka kuma jirto meeshan waayo yahuud wax la soo dhaweystaan ahaan dawladda Soomaaliya aqoonsi weysay oo iyadoo dawlad caalamka aqoonsi ay yahuud loo aqoonsi waa inay dawlad tahay aniga raali waxaan ku nahay islaamnimada haddii Soomaaliland Soomaalinimadii ay difaac weysay إسلامنا ذاك تجنا لنا. يودو أيضا بحسن باقوسي وحي أقوسي تملا أيضا باقوسي حسن عالم الإسلامي ما أقوسنا صومالي ما أقوسنا أيضا باقوسي حسن مرة صومالي لأنه حب باقي عالم كينو حب لا إله إلا الله محمد رسول الله يهود اسمه جينا ين كسارة أما عالم كتر لا إله إلا الله نع يهود وبتا أما نع إسلام كوسبتا لباس على روا صومالي لأن مرة أرنتاس نوع عباريننا دولة صومالي نوع عليها si adag waa hadal cabsida iska jooji waa fahamsama wadankeena yuud imaan mayso maalin imaan mayso habeen imaan mayso yuud adduunka ugu nacabna marka waxa waaye hadoo mijin jaad inta cune cindra oo maxaan ku raada hal habeen inta marqaam oo Israa'iil ka dhaxarkay Israa'iil anaga wadankeena ma imaan karto hadoo keenana ya asaa bada orod guuya orod waa fahamsama danta Israa'iil ay wadankeena ka leedaayna waxay rabtaa inay Yemen duqeyso waxay rabtaa Sacuudi inay duqeyso waxay rabtaa maxaan ku raada Qatar inay duqeyso waxay rabtaa inay Cumaan duqeyso dal Islaam liira oo dhan inuu jirin jiray marabto waxa yaani ka xumaay waxay tahay in markii labaad lagu soo xadgudbaayo madax banaanida dhuleed iyo midna siyaasadeed Ethiopia ayaa hadda ka horeeyay ku soo xadgudubtay waa tii yaani gorgorta la galo laga difaacay haddana waa markii labaad Israa'iil yaani madax banaanida dhuleed iyo siyaasadeed yaani gorgortan la gali rabto midaasi oo macnaha qosaysa baabul mandab marka ani waxa isleeyahay arintaniti waa arin marka xasaasi ah oo macnaha inaba shacabka Soomaaliyeed ay ka aamusi karin waana wax marka waxa dhigi kara dhibaato ku ah siyaasadda arrimaha dibadeed oo ah mid aad iyo daciif u ah markastana siyaasadda arrimaha dibadda ayaa la kulanto weerar noocan oo kaleeto oo loogu soo xadgudbaayo wadankeena Soomaaliyeed
cumar buule telefishinka caalamiga ah ee VOS muqdisho